wasiirkii hore arrimaha gudaha maamulka Khaatimo ahaatana gudoomiyaha garabka badbaado ee Khaatimo Axmed Maxamuud Abdoolaal ayaa si adag uga soo horjeestay wadahadalka Khaatimo iyo Somaliland haatan uga socda magaalada Hargeysa. dhinaca kale waxa uu taageeray shirka jaaliyadda SSC ee ka dhacay wadanka Kenya iyo hadalkii madaxweyne ku-xigeenka Khaatimo Cabdulle Maxamuud Cali Haybe. shakhsiyaadka Hargeysa. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. waxaan maanta halkan ku qabanaynaa saxaafadeed aan ugu talagalay inaan kaga hadalno ama kaga hadlo waxyaabaha loogu yeeray wadahadallada Somaliland iyo Khaatimo ee ka socda magaalada Hargeysa. wadahadallada waxaan noo cadeynaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo dadweynaha gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn in shakhsiyaadka Hargeysa ku siman aan la dirsan loo dirsan wadahadallada aan laga sugayn wax natiijo oo wanaagsan oo dadkan u cuntama ay yihiin niman gooni isu xilqaamay Hargeysana dantooda u aaday. wadahadalladaasina aan aaminsanahay inaanay kaga duwanayn kuwii hore lagu fadhiisanayay Addis Ababa iyo Djibouti ee qodobada madhalayska laga soo saarayay ee aan hore u soconaynin. taa waxaa ka sii daran oo aan aaminsanahay in shakhsiyaadka hadda Hargeysa ku sugan ayba ku milmeen maamulka Somaliland ayna ka mid yihiin ayna qoondeynayaan inay ku biiraan xisbiyada ka jira maamulka Somaliland ee aanay u maqnayn dadka gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn loona dirsan xitaa sida la aaminsan yahay ama waraysiga ku aragteen baa saxaafadeed iyo madaxweyne ku-xigeenkii maamulkaasi uu ka soo horjeestay arrintan. xildhibaanadii badankoodii waa ka soo horjeedaan. shacabka goboladan degan guud ahaan intooda badan majority ahaan garaadadii iyo isimadii deegaankani si toos ah bay uga soo horjeesteen wadahadallada. waxdan ugu jirtaana ma jirto dadka reer Khaatimo iyo dadka gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn dega. annaguna halkii un baanu taaganahay. mowqifkii aanu ku diidnay kii Addis Ababa iyo kii Djibouti baanu ku diidanahay inaan waxba ka soo baxayn markaana waaweyn haddana wax ka soo baxaya ma jiraan oo dadkan u dana. waxaanu leenahay shakhsiyaadka Hargeysa jooga kula talinaynaa haddii ay ka maarmi waayeen inay maamulka ku biiraan inay si fiican u cadaystaan oo ay ka mid noqdaan maamulka. laakiin dadka gobolada degan uma socdaan. dowladda Soomaaliya ay ka tirsan yihiin kana dhul sugayaan wixii ay xaq ugu lahaayeen inay ka helaan. marka cadaysta waxaanu leenahay ku biira maamulka annaga nooma maqnidin idin maanan dirsan. jaaliyadda Nairobi si cad bay uga hadashay waa soo dhaweynaynaa sidii ay uga soo horjeesteen wadahadallada. waxaa kaloo isna hadlay madaxweyne ku-xigeenkii maamulka Khaatimo isaguna arrinta aad buu uga soo horjeestay. dadkuna aad bay u soo dhaweynayaan waana u hambalyeynayna. inta dadka hadhay oo ay xildhibaanadu ugu badan yihiin waxaan jecelahay inay si degdeg ah arrintan uga hadlaan ee aanay ka aamusnaanin. Hargeysa in wax wada hadallo loogu sheegay ee ka socdaan baan maqlay. nimankanina masiirka ma gudbin karaan ummadan mana xambaari karaan. Hargeysana kama iibin karaan. Hargeysana waa ogtahay riwaayadii ay 20 sano jilayeen bay la jilayaan. waxayna rabaan inay magaca iyo nimanka madaxda isku sheegaya ay ku fashiliyaan Hargeysa. laakiin wax natiijo ah oo ka soo baxaya oo goboladan ay kaga helayaan ama shakhsiyaadka yare ay ku rari karaan dadkan fikirkooda Hargeysa ku geyn karaan meesha kama soo baxayso. waxa ka socdaana waa riwaayadii 20 sano ay Somaliland jilaysay baan anagu aaminsan. Hiba Xasan Cali, Hiba Hilaac, telefishinka caalamiga Somali News, magaalada Buuhoodle.